sidee ku nadiifin kartaa sanbabkaaga sidoo kale see uga hortagi kartaa caabuqyada ku dhaca sanbabka sanbabka sidiisaba waa xubin loogu talagalay in lagu neefsado hawana ay gasho hawana ka soo baxdo mar walbeeto sidaas daraadeed waxa u gudbi karo wasaqda banaanka ama environmentiga wasaqda taala u gudbi karto sida busta iyo waxyaabaha isha ay qaban kartay kuwa ay isha qaban karin sidaas daraadeed waxa loo baahan yahay qofka inuu barto sida uu u clear gareyn karo ama u nadiifin karo sanbabka sanbabka waxa ku nadiifin kartaa 3 marxaladood ama 3 qaybood u nadiifin kartaa midda koowaad waxay tahay in qofka uu mar walba jirkiisa hydrated yahay ama biyo badan inuu cabo mar walba biyo badan cabtid waxa fududaanayso in wax walba oo ku jira sanbabka in xabka ka soo baxaan sanbabkii ee banaanka ay imaadaan dareeraha marka oo mar walba oo jirka qoyan yahayna aad ay u jilcaayaan mar walba jirka uu qaleel uu noqdo ama on qofka uu markaas uu ku jiro way qalalayaan mar walba qalalaan waxa adag inay soo baxaan qodobka labaadna waxa waaye exercise inuu qofka sameeyo exercise-ka guud mar walba uu u fiican yahay jirka guud ahaan gaar ahaan sanbabka aad uu wax ugu taraa sababtuna maxay tahay qofka aad uu neeftuura markii uu exercise sameeyo mar walba uu neeftuurana qofka waxa imaanayso in uu markaas iska soo saaro waxyaabo badan oo wasaq ah iyo xab badan oo wasaq ah inuu iska soo saaro qodobka kalena waxa waaye qofka in uu sameeyo breathing exercise oo si ku talagala neefta in uu gudaha u qaado kadibna uu banaanka u soo bixiyo haddana neefta marka la gudaha inuu geeyo haddana soo bixiyo cabaarna uu haayo neefta oo awoodda xajinta in uu mar walba xaqiijiyo oo isku dayo qofkan in uu mar walba neefta uu xajin karo maxay ka saacideen marka qofka awoodda sanbabkiisana inay kor u kacdo sidoo kalena waxay ka saacideen inuu nadiifiyo sanbabkiisa waa Dr. Axmed Yuusuf Maxamed oo ku takhasusay cudurrada guud iyo neef mareenka ku soo dhawaad Horyaal Hospital